ciidamada ilaalada kacaanka waddanka Iran ayaa hadda ku dhawaaqay dagaal kale oo hor leh oo ay wacad ku marayaan in ay sii ballaarinayaan islamarkaana gobolka bariga dhexe uu noqon doono gobol nabadeed ama gobol dagaaleed kayagoo ka digaya in sida kaliya nabad gu helayo ay tahay in waddanka Iran laga joojiyo markaasi dagaalka haddii kalena ciidamo aysan laba kulula doonin waa wararka ugu dambeeya iyo qodobada aad maqli doontaan ee ugu waaweyn wararkeena ayay ka mid noqon doontaa sidoo kale waxaad maqli doontaan wadamada Yurub oo iyaguna maraakiib usoo diraya ay xaalad ay kaga badbaadiyaan dadkooda ku xayiran markaasi gobolka bariga dhexe ayaan idin hayaa waxaad kaloo raaci doona qodobo kale. wargelin muhiim ah ma doonaysaa waalidkaaga oo dhintay ama sariiryaal oo xanuunsan in lagaga soo cumreeyo bisha barakaysan ee Ramadaan cumrada bisha barakaysan ee Ramadaan waxay u dhigantaa xaj lala xajiyay nabiyullaahi Muhammad nabadgeliye naxariisi korkiisa ahaatee waxaana fursadan kaaga faa'iideynaya shirkadda At-Taqwa oo ku sameysay qiimo dhimis ballaaran inta lagu guda jiro acmaasha cumrada waxaa lagu soo duubayaa muuqaallo ku saabsan qaabka ay cumradu u dhacday haddaba wixii faahfaahin intaa dheer nagala soo xiriir cinwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda sida ay wararku ay sheegayaan marmar ka dambeysay daawashana qiimaha badan ee dowladda isku tagga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in ay furi doonto maalinta beri uun ah suuqeeda ee maalinta la yidhahdo markaasi arbacada ayadoo suuqyadii waddankaasi isku tagga imaaraadka carabtu ay qabirnaayeen ilaa iyo maalintii isniinta ahayd iyo axad ilaa iyo axadii aan dhaho maadaama axadda ayagu ay shaqada kusoo noqdaan ayaa waxaa hadeerta ay sheegayaan in suuqyadu weli ay yihiin kuwa burbur qarka u sii saaran waaxda loo yaqaano the capital market authority ama CMA iyo waaxda kale loo yaqaano the Abu Dhabi Securities Exchange ADX iyo Dubai Financial Market DFM ayaa intuba sheegay in suuqyadu ay ahaanba ay berritole isku day doonaan in dib loo furo kadib markii dadkii oo dhan ay gara waayeen meesha uu ku dameeyey suuqoodii iyo weliba gaar ahaan saamiyadii ay ku lahaayeen suuqyada saamiyada oo lagala soconayay barta internetka ayaa qayooday kadib markii isku tagga imaaraadka carabta oo ka baqayeen dhaqaalahooda aan ku tiirsanayn shidaalka uu burburo ayaa waxa ay ugu talagaleen inay xiraan si aysan jaanwareer dhinaca dhaqaalaha uusan u dhicin dabadeedna taa waxaa sii raacay in suuqii dhinaca shidaalkuna uu burburay taasoo iyaduna cirka kusii shareertay hubanti la-aanta dhinaca dhaqaale ee wadamada caalam carabi wararkii ugu dambeeyay ayaa xaqiijinaya wadamo badan oo caalamka carabta ah ay ka baqayaan in xaaladdu ay noqoto marka dambe sii darsan dhinaca kalena hay-adda IAEA ayaa mar kale sheegtay in aysan gebi ahaanba arag walxad dareera ah oo halis badan oo gaar ahaan kuwa radioactiveka loo yaqaano ee ah markaasi walxaha nuclearka iyo shucaaca ka dhasha shucaac ma jiro haba yaraatee ilaa iyo hadeerta ka dhashay xarumaha ay sheegayaan in Maraykanka iyo Israa'iil ay duqeeyeen ayay ku celiyeen walow ay gorsii horeysay hay-adda IAEA ay sheegtay inay suurtagal tahay in ay dhaceen duqeymo ama waxyeelo loo geystay xarumahaasi ma jiro wax dareeraha oo muujinaya xarunta Natanz halkaasoo la aaminsan yahay inuu ku jiray walxaha ugu sii daran ama kuwa ugu sii muhiimsan ayay tiri IAEA hay-adda qaramada midoobay ee dowladda Iiraan ay dhowr jeer ku eedeysay inay ka mid yihiin kuwa wax basaasaya ayaa markaasi sii darsanaya dhinaca kalena dowladda dalka Qatar ayaa sheegtay in ay ahaanba iska baryeelayso hadal ka soo yeedhay isla ninka afayeenka u ah oo la yiraahdo markaasi Majid Ansari oo goor sii horeysay oo maanta ahayd mar sheegay inay Qatar ay ahaanba qayb ka tahay dagaalka lagu difaacayo bariga dhexe laakiinse hadalkan ayuu kala cadeeyay wuxuuna sheegay in kaliya ay ku jiraan ayuu yiri in istifaaci nafsi laakiinse qayb aysan ka ahayn weerarka iyadoo dad badan ay ku maadsadeen kadib markii uu wasiirkani si fudayda maanta uu mar afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda si fudayda maanta u yiri Iran ayaanu iska celidanaa ayuu mar dambe hadalkiisa dib ka saxay kadib markii la sheegay in Amiru Diwan uu ku khasbay inuu hadalka faahfaahin ka bixiyo wuxuu yiri anagu bi ahaanba waxaanu kaliya oo aanu ku taaganahay xaqayaga istifaaci nafsi isla markaana waxaanu kaliya oo ka hortaganaa weerarada laakiinse waxaanu ugu baaqaynaa ayuu yiri in ay warbaahintu ay isticmaasho wararka saxda anagu qayb kama nihin dagaalka Iran lagu hayo ayuu yiri dhanka kalena wadamada Europeanka ayaa sheegay in ay ku foogan yihiin sida wararka badan ugu suurtagalsan ee dadkooda ay u diraan maraakiib isku xidhka hay'adahan ayaa bilowday kadib markii madaxa ugu sareeya ee midowga Yurub ee arrimaha markaasi magaalada Brussels Hajjal Habib ay ku dhawaaqday in ay qaadi doonaan tallaabooyin loogu dirayo maraakiib lagu soo badbaadinayo muwaadiniinta wadamada Italia Austria wadamada Slovakia ayaa ku dhawaaqay in ay hogaami doonaan qorshaha koobaad ee maraakiib loogu dirayo si dadka halkaasi looga soo samata bixiyo wadamadan ayaa sheegay ilaa iyo hadda in ay ahaanba isku xiri doonaan dhowr qorshe oo waaweyn oo muhiim u ah
kuwaasoo lagu samata bixinayo kumanaan iyo kumanaan Yurubyaan ayaa ka shaqaysta wadamada caalami carabi, kuwaasoo haya shaqooyin kala duwan ay ku jiraan shaqooyinka muhiimka ah, waxaana ay sheegayaan inay qabanayaan shaqooyinka ay ka midka tahay in dadka dib loogu soo celiyo waddankoodii hooyo, xilli ay mudanayaan markaasi khataro waaweyn oo aan la garanayn. wasiirada amuraha dabadda ee midooda Yurub ayaa iyaguna weli waxay sheegayaan in ay xal weydii doonaan sida ay u arkaan wadamada carabta dagaalkan soconaya. wasaaradda amuraha dabadda ee dalka Shiinaha, wasiirkiisa Wang Yi, ninka awoodda badan, ayaa waxa uu la hadlay khadka telefoonkan uu kula xidhiidhay wasiirka amuraha dabadda Israel Gideon Sa'ar, wuxuuna u sheegay sida ay uga walaacsan tahay dowladda Beijing habdhaqanka foosha xumaanaya ee maamulkaasi. hadal kulul ayaa la sheegay inuu dhex maray labada wasiir kadib markii Gideon Sa'ar loo sheegay in halakaynta gobolka ay ka wadaan aadka u foosha xun ay gebi ahaanba aysan raalli ka ahayn. mar kale ayaan cadeeyey ayaa la wasiirku inuu u muuqdo nin gebi ahaanba aan diidan isla markaana aan ogolayn wax loogu yeedhay markaasi habdhaqanka dhinaca dhigmeydhka keenaya ee weli ay sii wado xukuumadda, ayaa layidhi Tel Aviv, taasoo iyadu hogaaminaysa dagaalka ka soconaya bariga dhexe, islamarkaana dowladda Mareykanka ku hogaamisay dagaalkaasi. madaxda dalka Mareykanka ayaa qirtay in ay dagaalkan uu yahay dagaal Israa'iil ay wado, ayaguna ay daba socdaan, taasoo dhalisay hadalhayntii ugu weyneed ee shacabka Mareykanka ee balaha bulshada ka taagan, taasoo lagu tilmaamay inay shacabka Mareykanku isweydiinayaan sidee ayuu dalku u noqonayaa wadan xor ah hadiiba uu dalku leeyahay Israa'iil ayaa weerar qaaday annana waan dabagal. taas ayaana dhalisay kadib markii hadalkan uu kasoo duulay xogayaha amuraha dabadda dalka Mareykanka ninka loo yaqaan Marco Rubio, iyadoo afhayeenka baarlamaanka dalka Mareykanka uu sii ta'kiidiyey mar dambe uu hadlay, waxaana loo wada gartay inuu dagaalkaasi uu yahay dagaal markaasi Israa'iil ay leedahay, laakiin Mareykanku uu daba kacay. dhinaca kalena taliyayaasha ciidamada qalabka sida wadanka Iran iyo taliska guud ee Islamic Revolutionary Guard Corps madaxooda guud General Ibrahim Jabari ayaa soo saaray digniin oo ugu yeedhay inay sii wadi doonaan tallaabooyinka culculus ay qaadi doonaan. waxaanu gebi ahaanba u leenahay cadowga iyaga haddii aad go-aansateen in aad ku dhufataan isla markaana aad duqaysaan meelaha xarumaha noo ah, annaguna waxaan ku dhufan doonaa dhammaan xarumihiina dhaqaale ee gobolka, ayuu yihi Jabari. waxa uu sheegay in xidhitaanka gacanka Strait of Hormuz uu gebi ahaanba hadeerto uu sii wadi doono, islamarkaana uu sii hogaami doono. wuxuu ku wacad ku maray in $200 ay gaari doonto shidaalka maanta $80 cagcageenaya. maanta $80 baad ku iibsanaysaan ayuu yidhi foostada ceerin, laakiinse $200 inay ceerin idinku tagto waa wacd. wakaalada wararka isna ayuu u sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ee wadanka Iran ay iba furi doonaan. wuxuu ugu yeedhay dagaal cusub oo qadhaadhaada kaasoo weji kala yeesha, wuxuuna sheegay in dagaalka hortale uu noqon doono kii baabi'inta dhinaca dhaqaalaha. Strait of Hormuz ayaa gebi ahaanba loo arkaa in uu yahay kan ugu muhiimsan ee wadamada caalamka carabi ay shidaalkooda mariyaan. wadamada ay ka imaanayeen gaaska dabiiciga ayaa gebi ahaanba gorsii horeysay joojiyey Qatar iyo isku taga Imaaraadka Carabta, iyo weliba sidoo kale dowladda Saudi Arabia oo qayb ahaan isticmaali jirtay. waxaana uu sheegay Jabari in ay sii wadi doonaan wadanka Iran ilaa iyo inta ay guulaha lama taabtaanka ah la taaban karo ay gaarayaan, taasoo uu sheegay in ay ka hortegi doonaan. dhinaca kalena waxaa la sheegay in kooxaha gobolka ee Iran ay taageerto ay is abaabulayaan. wararka qaarkood ayaa sheegaya in wadanka Suuriya oo dhaqdhaqaaq horle uu ka bilaabday, halka Lubnaan gorsii horeysay ee kooxdu ay sheegtay in waranka ay gabaska qaadatay. Yemen ayaa iyagana la filaya in dagaalka uu cugaan, ayadoo dadka qaarkood ay sheegayaan inay suurtagal tahay inay dib u soo noqdaan in la xiro markaasi dhulka ay ka midka tahay dhulka istaraatiijiga ah. ayaa leeyahay Qatar ayaa dhinaca kale hadeerta sheegaysa inay weli sii wado joojinta duqeymo waaweyn oo dhacaya, kuwaasoo ay ku tilmaantay ayaa la yidhi inay qaadi doonto tallaabooyin hor leh. dhinaca kalena dowladda Ingiriiska wasiirkeeda koobaad Keir Starmer ayaa sheegay in dowladda dalka Britain ay difaaci doonto, ayuu yidhi xarunta ciidanka militariga ay ku leeyihiin dalkiisu Cyprus ama Qubrusta dhinaca koonfureed, isagoo gebi ahaanba ka jawaabaya marba marka ka dambaysa sida uu u sheegay in ay ka hortageen diyaarad nooca helicopter ah. wuxuu yidhi waxaan u dirnay halkaas, ayuu yidhi helicoptero iyo wuxuu yidhi burburiyaal anagoo ka hortagana, ayuu yidhi diyaaradaha halkaasi kusoo duulaya. wuxuuna sheegay in burburiyaha dalka Britain loo yaqaano HMS Dragon uu gobolka u tegi doono inuu difaaco xarumaha. Mareykanka ayaa goor sii horeysay ku tilmaamay in ay arrintu tahay marmar ka dambaysa mid uu dhabarka ka jabiyey ra-iisul wasaaraha wadankaasi kadib markii uu ka baxay, islamarkaana uu sheegay inuusan qayb ka ahayn. dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka ayaa ku celiyey in gebi ahaanba dhibaatooyin aad u xoogan ay dhici karaan, islamarkaana wuxuu sheegay in ay wax aad iyo aad u xun ay imaan karaan
haddii uu qof xunu qabsado wadanka iiraan ayuu yidhi. laakiin iiraan ayaa hadeerta 3 nin oo culculus ayaa ka taliya taliska ugu sarreeya, halka madaxweynaha wadanka iiraanna weli uu shaqeynayo. ninka loo yaqaan Trump ayaa dhinaca kale diiday in uu gebi ahaanba taageero ninka loo yaqaano Bahlawi, oo uu sheegay haddii xataa wadanka iiraan uu ku noqdo in lagu dili karo. ninkaasi waa nin iska fiican buu, laakiinse naf kale ma laha. inta badanna dadka basaasiinta ee lagu shaqaysto ayaan hadhowta loo dirin xarumaha muhiimka. dowladda dalkaasi isku taga imaaraadka carabta ayaa warbaahinteeda Dubai Media Office-na waxa ay kaliya tabisaa qaraxyada mar walba soo gaaraya, waxayna sheegaysaa in qaraxyo badani ay ka dhaceen madaqadooda ama deegaankooda, islamarkaana magaalada Dubai ay weli socoto. warar kale aan dabashan qiimo badan ayagoo soo dhacay aan soo kala shiilo warar